kusoo dhawo Otodel Stadium tartanka Ramadan Cup lagu qabanayo markii saddexaad Otodel Stadium waa ku dhawahay waa muxuu ahay tartan ka dhaxeeya dhammaan dhalinyarada ka dhisan xaafadda waana arin aan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baan ku dhawahay aad ma astahay teamka ka socota magaceeda waxaan ka socdaa championska xaafadda kooxdii hore u qaaday Ramadan Cup New Stars ka socdaa aad ma astahay waxaan la joogo maanta kabtanka Jazeera Academy kusoo dhawo Otodel Stadium tartanka Ramadan Cup markii saddexaad lagu qabanayo waa ku dhawahay Otodel Stadium magacayga Cabdinaafi Cabdulla Ciise aan kabtan koowaad ee Jazeera Academy maanta lugteeni koowaad ee Otodel Stadium aan ku dheelano insha Allah waxaan rajaynayaa guul idinkana waa maasantiin aad ma astahay kusoo dhawo Otodel Stadium ku dhawahay waan soo boqon maanta garoonka teamkaada magaciisa iyo magacaada magacii waa Adkaaf Maxamed Axmed teamkana waxa waa Jazeera Academy waa tartanka Ramadan Cup ee lagu qabanayo markii saddexaad Otodel Stadium markii noogu horeysay waa martii waan ku sharafay tartankan waxa rajaynaynaa sanadkan inaan si wanaagsan uga qayb qaadano waxaan rajaynaynaa xataa koobkan inaan geeyno xaafadda ka imaanay oo degmadeena le gaar ahaan xaafadda Anta Dheer هذا مصلح وسط لك فرصة غالية اسك خسارين وسط لك ودو يستر عضته يستر أولي جزيرة فرصة غالية عيارته والله بيلو عيارته والله بيلو وسط لك ودو ورايا بعد kulankii u dhaxeeyay New Star iyo Elban wuxuu ku soo ilaaday 6-8 waxay guusha ku raadeen New Star. Berito waxay ciyaari doonaan Muqdisho iyo Olympic ayaa ciyaaraya insha Allah.